himilada quraan lahayn ama noo muuqata waxay ahayd goorma dadka af Soomaaliga ku hadla la mideynaya la isu keenaya waxaanu ku fakaraynay waxaanu ku riyoonanay waxaanu ku seexanaynay waxaanu ku soo toosaynay wuxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed meel kasta joogta yahay waqtigii isticmaalku ina qaybsaday qayb waxay ka mid ahayd wixii la oran jiray French Somaliland waa dhulka Djibouti imika la yiraahdo Ethiopia weyn ogay siday ku baxday Kenya iyo Ethiopia dagaal fara badan bayna dhaxmaray dagaaladina dhaxmaray dad badan baa ku dhintay oo ku shahiiday dagaaladii markii laga xiiqay waxa timid waa hagaaga haddaba Somalilandii hore Britishka xukumi jiray iyo Ingiriiska xukumi jiray iyo Talyaaniga xukumi jiray oo iyagu midowgoodu ku salaysnaa barnaamijka isu keenka Soomaalida oo dhan muxuu soo ku dambeyn doonaa waxa dhacay haddii la oran lahaa dee iyagu waa fayta kambani iyagu waaba israaceen iyo sheekadu halkaas ku dhamaatay waxba ma ateene waxa dhacay dagaal aad iyo aad u qadhaadh u farxun xasuuqa kumayaal iyo boqolaalku ku dhintaan waxa dhacday in dayuuradihii qaranka Soomaaliyeed uu lahaa dawladda Soomaaliyeed lahayd inay garoonka Hargeysa inta ka duulaan ay magaalada Hargeysa sida u rusheeyaan oo baabi'iyaan oo dad iyo duuyo wax dhaqaaq aanu jirin waxa weeye waa dayuuradihii dawladdii Soomaaliyeed lahayd ba inta garoonka ka duurtay waliba taaqoona kuma joogine shacbigii iyo dumarkii markay qaadeen ee ka qaxeen magaalada ka baxeen ee loo jeeday carruurtii ilka ku qaadeen iyagoo sii socda ayga kaga daba tagan ku rusheeyay xadka ka gudbaya halkan dheer bay qaaratay in arrinta la iska xoreeyo halkii asran arrintaasi dadka qaar baa yiraahda muxuu ahay asran waxa u dhalatay ama ahayd inay kala goyso Soomaaliya iyadu kala burburiso runtaadii sheegaya asran sidii ba laga sheegayay muddadii ugu dheerayd ana gudoomiye ka ahaa asran policygeedu ma ahayn marka hore inay goosato ilaa waqtiga ugu dambeeyana hatta goosa ba ahayn laakiin waxa weeye goosiga waxa keenay kalifaad koobiya sagaashankii markii anigu ka degay maamulka asran oo dhowr bilood ka bacdi la xoreeyay dalkii siyaad barana nidaamka waxa ugu weynaa nabaradii uu geystay asran markii laga qabsaday waqooyi inta kale israacday iyadoo aan laga tala gelin hadda iyadoo markii hore wax ka tirsan tii hore israaci hore ayaa markii siyaad bar xamar ka dhacay oo mudaharaad ka dhacay Hargeysa xabar kaga dhacay laakiin cidda riday runtii uu ahaa awoodii asran ayaa inta dawladda Cali Mahdi dawlad kaga dhawaaqday xamar ayaa la ciidamada Sayrac iyo joogaalka rahays dhiibay la yiri reaction ka dhashay dadku waa ka keenay inaan policyga horeba cidaba ku dhaqmin inta burcal la kacalaya waaru goosanana waxaan la soo noqonaa madax banaanadayadii sida ku dhacday sidaas policy ku timi reaction policy ka dhashay taariikh ayuu ahaa